إن إلهي راجعون وجدين ميدات كالكام حكى دحay shil laga yaabo meydkaas oo jeedin gaari dhan oo meeshan ku qarxay migratin oo jeedin xagga dadku si u goobiyihiin ilaahow na badbaadi lix qof hadda meesha ku dhimatay oo kamid tahay gabar loo muniish anigoo video duwaya waxa dhacday arin mucjiso la ayaa maqlay waxa dhimatay gabar Allah u naxariisto youtuber ahaan jirta aniga xataa aan daawan jiray adduunyada waxay tahay kun fi dunya ka annaka qariib oo caafir sabiil adduunyada waxa ku noqotaa qof musaafir ah ama qof laami gudbaayo waxa halkan tacsiida aga diraya walaashii mudan jimcaale oo ku geeriyootay maanta shil ka dhacay Nairobi iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد مركلة أحمد شاه جنال وجنال كينو وجنال كيجا إن عاو فيديو شنو هر فيديو وكدويني هاي إن فيديو جا فيديو مرقدي صوته أنا جو فيديو دوايا وحد عادي إن أرين معجزة لا مقلي إن وحد متي جبر الله ونحرسته يوتيوبر هانجرت أنا حتى أن داون جري أو شلمان الدرد يقدم بيسيد أو شذا روايدي يسود دقاين سومال رياكت ay ka tirsanaan jirtay groupka la yiraahdo oo Kenya ka dhisan marka muniish waxa leeyahay Allah u naxariisto horta nolosha geerida horta waxa waa qof walba waqti ayuu leeyahay uu ku dhinto marka qofku saacadna loogu daraayo dhimashadiisa sidaas tahay ana waxa la yaabay Kenya wadooyinkeeda dad badan oo ka cawaada waa arkay oo dhahayaan in shirka badbaaday saan way kida way marka cidii badbaaday ilaahay amaansado cidii dhimatana ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiya dhilaha nolosha ay asaaska nolosha waxa waqti ay leedahay qofka waqtigiisa waqti loogu madaraayo qofka waqtigiisa waqti loogu madaraayo taasna waxaan dhilaha qof walbo maxallahay maalin intuu leeyahay ana xataa hadda waxa sheegay waxa kalma kala aqaano sababtoo qof shalay maana daraad adaawaneysay oo maanta lagu dhawo geeriyooday oo wiilaha geeriyooda maxamed shilu ku geeriyooday lagu dhaho way ka xanuun badan tahay marka caawada aan hadda kula hadlay video ay diyaarsanaa inaan soo geliyo laakiin video inaan ka hormariyo ayaan doorbiday sababta ugu hormarinaan waxay tahay tacsida waa la gutaa waajib waaye so anina guto waaye asxaabteedina insha Allah Axmed iyo Axmed Turki labadoodna hadda way la joogan ayagana way gudan doonaan insha Allah marka waxa dhaha ayaan garan lahayn so maraba inaan waqti idin ku dheereeyo asxaabteedina insha Allah ayagana way gudan doonaan tacsida Axmed iyo Axmed Turki sahar oo kugu sheegay garbay taagan yihiin ayagana way la gudan doonaan so إن شاء الله أيضاً ويلا جودن دونان أحمد يا أحمد تركي إذن كنا سوي استاجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو نقط وناكسن ولكن أحمد مرق يا أحمد تركي إن شاء الله عاورت حواي آذان نحصلنا هاي أرين يا دمرق بدنا نشوف يعني نلسو داقي حقيقة أنا حضرت أنا نسوق وقال نجد أصحاب نلسو داقي ورت آذان وحنا هاي ورت قفل بوقت يسوق لمنايا وحنا لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ومال الله الصعود مرحومة جريوتي ولا شينا منو جمعالة إلهي وحن أوبرينا ورتا قبر قاد إنه إلهي واسعيو إيه الذي قراودي إيه كتكتن إيمان صادق إنه إلهي كسيو وحوى نفول بوقت كده بحيسا تهذي كلا جودان ولا شيني تبادلنا حتى كجران الله راوعة إن كستو مقعيدو دويلا أنو رسول شيغن لكن رجنوا بكجران قبرنا هذا أيضا أنا الشيء جريوتي إلهي وحن قبرنا جنة الفردوس إلهي إنه قبري كذا سؤال قبري وفوده كتاب كذا كانت مدقنو إلهي كسيو نفول بنم وقت كذا تيجسا لأنه ما تسمعن لو قمت درايو ما أنت عدلت ويكون خوريا مشهد كل بمنس مشهد كل بحسه مركا إيه كانوا حن لنا هاي أو سي سكوتوب تيم إحنا مرة خدانا صوت رينا تعسيداس هبدا أن أصوم السنينا إنه إلهي سمر إيمان صادق إنه إلهي كسي هيك أيضا كسو جيدو أمريكا تلطي سومالي وينت إيكا بحثنا وحانينا هاي سيدو كلا إيغانا إلهي إيمان سمر صادق أو إيمان لله كسيو
marka aadaan aan macnaha mala soo koobi karo waa arrin aad u murugo badan oo naxdinteeda xambaarsan marka insha allah mar qaadin maxaa leedahay waxaan dhihi lahaa inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun horta geeridu way xanuun badan tahay Soomaali waxay dhahdaa geeri ya qof taqaano kuma fiicna geeljir waxa la qof taqaano kuma fiicna geeljir ku fiican tahay geeljirka soo waxa dhihi lahaa bacala kulli xaal asxaabta qaaliga waxaan leeyahay asxaabtii maxamed maraq waxa halkan tacsiida aga dirayaa walaashii Muna Jimcaale oo ku geeriyootay maanta shil ka dhacay Nairobi iyo Mombasa inta u dhaxayso waxaa laga yaabaa Muna saaka markay bixisay inay mowqif ku baxday ama inay meesha dan u aaday baskaasi asxaab oo anaga tiimkeena ah ayaan soo waceen oo geerida noo soo sheegeen waxaa jireen hataa dad oo iyada la socdo oo sida youtuber inay yihiin la sheegay laakiin xaqiiqda dhabta waxaa la hayaa inay iyada geeriyootay saacan ay ku sugan tahay Nairobi isbitaal ku yaala Islii ay ku sugan tahay asxaabta qaaliga Muna waxay ahayd qof youtuberad caan ah oo la yaqaano oo inta badan Soomaali react ah lagu bartay inay jisho videoyaasha oo markin oo qeyrada leh mar walba oo English ku baxo sidaas darteed maanta waxaa laga yaabaa inay aad inooga murug badan yihiin eelkay ka baxday een ka geeriyootay marka qaasatan ana Axmar Qaan waxaan dhihi lahaa adduunyada waxay tahay kun fi dunya ka annaka qariib oo caafir sabiil adduunyada waxaa ku noqotaa qof musaafir ah ama qof laami gudbaayo anaga adduunyada waa isleeysiinaa mar walba waxaan jecelnay inaan sii noolaanayno saacan hadda marka waxaa laga yaabaa inaan qadka markaa ka baxo tii rabbi imaato marka ana waxaan dhihi lahaa noqda adduunyadani qof walba wuxuu joogaa waa wax iska yar nin walba inuu ilaahay ka baqo uu mar walba xasuusnaado tii rabbi salaadii in la tukado waqti walbana ilaahay lasoo xasuusnaado ma ahan keliya in la fiiriyo waxyaalahan hadda aan isticmaalayna aan waqtiga gelinayno inaan iska yareeno waxaa laga yaabaa hadda inay qof walba mowqif uu leeyahay adoo video duubaysa nafta kaa bixi kartaa adoo oo videoga diyaarinaya dhibaato kugu dhici kartaa marka noqo camalka ugu dambeeya inuu noqdo adigoo masaajid ku jiro ama adigoo maarkin oo cibaadada Allah macnaha sameynaya ama ku guda jiro marka videoga tacsiin waayo uma talagelin video saas u dheer ama video saas kaliya waxaa ugu talagalnay inaan la qayb qaato murugta xanuunta badan iyo maalintan aad mugdiga u ah Muna Jimcaale geerida ku timid waxaan dhihi lahaa eerkay ka baxday iyo inay ilaahay uu ka sii bedel khayr qabo ilaahayna uu naxariisto maanta wax kale aan dhihi karna ma horta waxaan ku soo daaxelinaa insha Allah videogiisu walaalkii uu sheegay waa masii dheeraan doono khaasatan heer Kenya sida quruxda badan aadna la soo wadaagteen arrintan murugada xambaarsan Muna insha Allah qoyskeeda kaliya kama tegin Soomaali weyn oo dhan ay ka tagtay mar labaadna waan ku soo celinaa ilaahay waxa waaye qabriga uu waasixiyo su-aasha qabrigana Allah u fududeeyo jannatul firdawsna Allah ka waraabiyo heerkeen idinkana sidoo kale sii wada jira ama gacmo iskugu xirantiin insha Allah kaalin weyn ka qaata aaskaas kulleedna waan isla socon doonaa hadduu alle idmo videogan xigay videogiis kale waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo inna ilaahi raajicuun ujeedin meydadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo meydkaas oo ujeedin gaari dhan oo meeshan ku qarxay magarate ujeedin xaggaa dadku si u dhooban yihiin ilaahowna badbaadi 6 qof hadda meesha ku dhimatay oo ka mid tahay gabar Muniish